guud ahaan dadyoga reer koonfur afrika ayaa saakay u dareeray doorashooyinka dowladda hoose ee dalkani koonfur afrika iyadoo ay guud ahaan 9 gobol ee dalkani ka dhaceysay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkani koonfur afrika. mid ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan dalkani koonfur afrika lagu magacaabo Mahad Geedi ayaan kala sheekaystay qaabka ay u dhacday doorashada. haddii la fiiriyo qaabka dimuqraadiyadda waddankan waa mid meel dhalisay sababtoo waxa wax musuqmaasuq ama isdabamarin male waa wax nidaamsan. guddiga doorashadana si xaq way dadku kala saaraan. marka doorashada ilaa laga soo bilaabo 1994 waagii ay dowladda cadaanka iyo midabta koorka meesha laga saaray qolada ANC baa aad gacan sare ku lahayd, laakiin hadda bariyahan dhalinyaradii dib ka soo kacday ee ANC ku jirtay ayaa markay arkeen ragga hore ee xornimada usoo dagaalamay inay qaabka la wax wadeenin ay xisbiga ANC ka goosteen oo markaas ay xisbiyo yar samaysteen sida ninka loo yaqaan Julius Malema oo xisbiga EFF samaystay oo ahaan jiray madaxweynaha dhalinyarada ee ANC-da. haddii la fiiriyo dimuqraadiyadda waxan ama nidaamka doorashada waddankan aad buu ugu horumaray, waayo wax isdabamar iyo musuqmaasuq iyo dagaal mar hadda doorashada socotaa meel walba ka socotaa wax buuqi wax isdawad mar inuu buu tagaya xaafadiisu ka socdaynaya. Midna hadda xaafadeena aan deganahay waxa waaye ward content iyo 8 laba nin baa ku tartamaysa, nin ANC oo la yiraahdo Jerry Musasi iyo nin kale oo la yiraahdo Rick Nair oo Hindi. sidoo kale waxaan wax ka weydiiyay doorashooyinka saakay ka dhacay dalka koonfur afrika gaar ahaan magaaladan aan ku dhaqanahay ee Johannesburg gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani koonfur afrika mudane Cabdullaahi Mahdi Bashiir oo lagu naanayso Cabdullaahi Yare sida ay u dhacday doorashada iyo waxyaabaha ay Soomaalidu ka baran karto. 63,000 oo musharax baa u taagan oo dowladda hoose u taagan. waxaa ka qayb galaya 26 milyan 612,000 oo qof ayaa ka qayb galaya oo register ah. 22,222 meelna way ka dhacaysaa. saddex xisbiga ugu cadcad xaqiiqatan axsaabta waddanka ka mid ah. laba xisbi oo xisbiga cadaanka iyo xisbiga ANC oo xisbiga taariikh waddanka ku leh oo xisbiga xorriyadda dhaliyay xisbiga ugu taageeraha badan waa xisbi weyn ilaa 104 sano jira. xisbiga kale la yiraahdo hore loo dhigay National Party hadda la yiraahdo DA oo xisbiga asna awoodiisa kor u soo kacday oo ah maanta xisbi in badan meelo badan mataqaana haysta oo gobolka Western Cape iyo Eastern Cape meelo badan kamid ah ilaa Gauteng doorashada qarankana meel fiican imaaday. doorashada la kolka markaan ilaahay maxay xasaasi u tahay waxa lagu tartamayaa codadka dadka loo yaqaan free bonka dadkina xorriyadda dhashay xilligeedii oo ilaa 4 milyan ah ku dhawaada codadka special vote-ka oo ilaa 700,000 oo cod ah. waxa kale lagu tartamayaa oo maanta muhiimka lagu tartamayo waxay tahay 3 magaalo oo 3 fakar oo branch ah oo ay muhiim lagu tartamayo waa ama 3 milishibiyo milishibiyo Nelson Mandela Bay iyo milishibiyo Johannesburg Metropolitan iyo milishibiyo Tswana. Sheekh Ahmed Guure, Kalsan TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.